xafladan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa soo qaban qaabiyay ururka saxafiyiinta dowlad goboleedka Galmudug ee Geeska Afrika iyo waliba ururka dhalinyarta Galmudug waxayna ujeedadu ahayd in lagu soo dhaweeyo wariye Xuriyo Cabdulqaadir Sheekh Cali oo ay kooxo hubaysan muddo ka hor ku xabadeeyeen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta qurbo joogta ah ee magacooda loo soo gaabiyo Sajnas Mudane Cabdiqafaar iyo waliba gudoomiyaha saxafiyiinta Galmudug ee Geeska Afrika Mudane Liibaan Cali Maxamed saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha magaalada Nairobi Abwaan Dhoofo Khaliif iyo waliba siyaasiyiin iyo waliba marti sharaf kale ugu horeyn waxa xafladda daa furay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Galmudug ee Geeska Afrika Mudane Liibaan Cali Maxamed hadii aan u gudbo xafladan waxa ugu talagalnay hadii aan ahay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Galmudug ee East Africa in gabadhaas da'da yar ee Xuriyo aan u sameeyno xaflad dhiirigelin ah taasoo dhibaatadii ay ka soo gaartay magaalada Gaalkacyo 14 September in aan ku ilowsiino dhibaatadaasi oo aan farxad ugu bedelno ay aragto dad walaalo ah oo East Africa ku nool oo saxafiyiin Galmudug iyo saxafiyiinta Soomaaliyeed oo Cabdiqafaar gudoomiyaha u yahay dhamaantood in ay niyadis uga dhigaan sidoo kale waxa asna meesha ka hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta qurbo joogta ee Sajnas Cabdiqafaar Shire marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa saxafiyiinta Galmudug ee madashan quruxda badan soo qaban qaabiyay uguna talagalay inay ku soo dhaweeyaan walaasheen Xuriyo Cabdulqaadir Sheekh Cali waxaan leeyahay aad baa ugu mahadsantiin sidaas la mid ah waxaan iyana u mahad celinayaa dhalinyarada Galmudug oo aan aaminsanahay inay gacan weyn ka geysteen qabashada xafladan ama munaasabadan حقيقي ولا شيء حرية عبد القادر كل أنا حدان كه الله عد كصحفيين تقرب جوجا ذلك كينيا وحنا من سنة هي وحياته أساسية إنه قبحنا بقول كي وبقول ما ناقبل لكن وحنا نسكت هنا gudoomiyaha ururka dhalinyarta Galmudug ayaa kamid ahaa dadkii ayagana goobta ka hadlay waxaan aad ugu mahad celinayaa wariyaasha sharafta leh ee nagala soo qayb galay xafladan aad u qiimaha badan oo maanta aan tiiraanyo gaar ah awlo qayb galayno walaasheen Xuriyo Cabdulqaadir Sheekh Cali oo aad ugu xunnahay waxyaabihii soo gaaray waa kuwan qaar kamid ah dadkii madasha ka soo qayb galay oo halkaasi ka hadlay dalish gaarka loo soo meeray walaasheen Xuriyo Cabdulqaadir Sheekh Cali oo kooxda Blay ay ku dhaawaceen magaalada Gaalkacyo December 19keedii iyadoo dhaawac daran oo aad u xanuun badan loo geystay walaasheeda waxaan uga mahadnaqayaa dadkii Soomaaliyeed ahaan wariyaashii iyo dhaqaatiirtii Soomaaliyeed ee u istaagtay inay Xuriyo badbaadiyaan Soomaalidu waxay soo hanjabtaa markuu qofka leeyahay ku dilay waxa loogu hanjabaa 5 xabadood oo ku dhufanaya oo ciidadeeya waa ku dilaya marka qof 5 xabadood ku dhacday waliba 4 kamid ah dhulka la yiraahdo Saableyda oo inta wareegayla Saableyda feeraha dhulka ay kaga dhaceen 4 xabadood hal xabana gacanta kaga dhacday marka 5 xabadood oo ah ereyga ay Soomaalidu isugu hanjabto markii qofku leeyahay ku dilay 5 xabadood baa ku dhufanay walaasheen oo gabar ah lagu dhuftay xaqiiqatan ma dareemi kartaan walaasheen ah 14 September ee sanadii tagtay 2011 kooxad Blay iyadoo miinadeeda saxaafadeed ku guda jirta dhibaato loogu geystay allihii badbaadiyay ee maanta annagoo wada kulansanna runtii walaasheen halka ka muuqatana runtii ma haddaas waxa iska leh allihii subxaana allihii weyna waaxidka ahaa waxaan idinkaga tacsiyeynayaa labadii tacsiyooda isku xigtay xiis iyo fantastic oo ahaa walaalihii qaaliga ahaa ama qabiilka isla ahaydeen si gacan xasara oo ay dishay waa idinkaga tacsiyeynayaa maadaama aan fursadan galabta helay samiri iimaan Allah idin ka siiyo ummadda Soomaaliyeedna samiri iimaan Allah ka siiyo jannadina Allah ka waraabiyo qof uusan saameyn dhib ma lahan waxaana looga gudbi karaa aniga sida ay la tahay in annagoo isku duuban from saxafi ilaa iyo qofka ugu maaragtay bulshada maaragtay ku jira inaan dhamaanteen tooba keeno habeenkii markii aan maqlay Xuriyo waa la dhaawacay sawirkeedii baan aqooday kolkaas oo fiiriyay baan Xuriyo ugu horeeyay ku la dhaawaco ugu dambeeyay bay ka mid noqotay bal waa yahay geerideeda badiyana maqala Ilaahay rabbiyo ii badbaaday hadalkaas baan anigu aan ku sheegay Xuriyo laba kalimadood baan leeyahay Xuriyo od wixii ku qoran kun iyo koow jeer bay ka weeyeen alla uu ka badbaadiyay alla caafimaad ha ku siiyo waxaan aad ugu faraxsanahay xafladan qiimaha leh wariyaasha Galmudug iyo jaaliyadda bay soo qaban qaabiyeen waana ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo farxad weyn ay tahay walaashay waxaan rajaynayaa
in maalmaha soo socda ay ka shaafi doonto insha allahu tacaala ragga wax la wadana barnaamijyadooda ay fududaan doonaan marka annaga haddaan mudaharaad samayno aan muddo wax tabin deyaa iska warqabaya madaxweyne lagama warqabayo laftigiisa Soomaa ugu dambeyntii ayaa waxaa xafladda soo gunaanaday wariye Xuriyo Cabdulqaadir Sheekh Cali waxaan u shaqeynaynaa anagu shacabka Soomaaliyeed ma shaqeynayna dad ajaanib waxaan la ku dilayaa ama la ku dhaawacaya waa danta shacabka Soomaaliyeed miyaysi saxafiyiinta Soomaaliyeed naga go'nay inaan ka mudaharaadno makarafoonada iyo telefishinada aan dhignaa sidno maxaan la ku dilayaa waxaan tabinayno dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa oo sheegaynaa haddii ay sida awood lahayn inay qabato dadka wax dilaya inay xilka iska dhigaan sheegaan inay si waxba ka qaban karin intii waa in la siin daro waana waxaan ilaawi karin dhacdooyinka xanuunka badan la suxufiyiinta ku dhacaya marka inaan ilaawayna ilaa raajoon dhacdadani Soomaaliya intay saa ku jirta naga maarayso xafladani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayna soo qaban qaabiyeen ururka dhalinyarta Galmudug iyo waliba ururka qurba joogta saxafiyiinta Galmudug ayaa waxay ku soo dhamaatay sidii loogu talagalay Calula Nuur Calula Somali Channel Nairobi